War degdeg ah dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xilli rasmi ah la furayo garoonka caalamiga ah ee kubadda cagta Stadium Muqdisho. Waxaa dhammaad ama gabagaba ah ku dhow howshii ka socday garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho. Waxaa hadda la saaray cawskii lagu ciyaari lahaa kubadda. Sidoo kale waxaa hore usoo dhammaaday dib u dayactirkii goobihii la fadhiisan lahaa iyo sidoo kale qaybtii VIP-da iyo waxaa kaloo sidoo kale soo dhammaaday nalalkii habeenkii lagu ciyaari lahaa. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in si rasmi ah garoonka loo furi doono maalmaha xurriyadda ee 26 iyo 1 Luulyo. Arrintan ayaa imaaneysa kadib muddo dheer oo garoonka ahaa mid burbursan ayaa waxaa dib u dayactir ku bilaabay dowladda Soomaaliya muddo hadda laga joogo ku dhawaad 2 sano. Ugu dambeyn waxaa hadda la filayaa in uu xariga ka jaro garoonka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Garoonka ayaa waxaa la dhisay 1978 waxaana dhisay company Shineys ah, waxaana lacagta lagu dhisay bixiyay dowladdii xilligaasi jirtay oo madaxweynaha ka ahaa Jaale Maxamed Siyaad Barre. Waqtigii 1980kii wuxuu garoonka ahaa kan ugu weyn Afrika kadib masiibadii dagaalkii sokeeye. Weli garoonka Soomaaliya weli waa sidii 2010kii wuxuu ahaa garoonka shanaad ee Afrika dhan ugu weyn. Garoonka kubadda cagta Muqdisho Stadium waxa uu qaadaa 35,000 oo qof. Garoonka waxaa lagu naanaysaa tuulada ciyaaraha. Waxa uu leeyahay garoomo badan oo ciyaareed sida kubadda cagta, kubadda koleyga iyo dabaasha wixii la mid ah. Garoonka waxaa kaloo loo adeegsadaa khudbadaha madaxweynayaasha ay jeediyaan iyo ku tukashada salaadaha ciidda. Wuxuuna maanta yahay garoonka kale ee kubadda cagta ee lagu magacaabo Banaadir Stadium oo hore loo dhihi jiray Koni Stadium balse hadda loo bixiyay Engineer Yariso Stadium. Allah u naxariistee. Waxaana sugnaa waa 1 Luulyo iyo xariga jarka garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho insha Allah.